ramadaantan waxaad ku arki doontaa goobtan ilmo in aan soo dejinayno tusaale ah 30 mawduuc oo gaar u ah anshaxa guryaheena oo aan ugu talagalnay maalin kasta inta aynu ku jirno bisha Ramadaan. Mawduucyadan ayaa ah kuwa ku saabsan anshaxa akhlaaqda ama qiyamka aynu leenahay. Waxaana ugu talagalnay in ay caruurta yaryar ka qayb qaataan soo gudbintiisa iyo soo jeedintiisaba. anshaxa 21aad waa waan cafinaa kana xumeeya. bar ilmahaagu inuu cafisku yahay muhiim oo Ilaahay subxaanahu wa tacaala jecel yahay. Tusaale ahaan, ku dheh uma baahnid in aad sugto raaligelin ka hor intaadan cafin. Cafisku waa wax inaga caawinaya inaan iska dhaafno khaladaadkana lagu sameeyo. Ogow waxa tahay macalinka koowaad ee ilmahaagu leeyahay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Wancaafina kana xumeeyo. Iftiimi mustaqbalka ilmahaaga. Waxaad ku iftiimisaa baridda anshaxa wanaagsan ee diinteena iyo dhaqankeenaba si aad uga dhisto caqliga oo aad u koriso dadnimadiisa iyo damiirkiisaba.